subax wanaagsan daawadayaal halkani waa magaalada Muqdisho. xaaladda magaaladu waa ay degan tahay, wax badan ma dhacayaan, inkastoo meelaha qaar magaalada xaafado ka tirsan dadku ay barakac sameynayaan. halkan haddaan ku sugannahay waa wadada Maka al-Mukarrama ee magaalada Muqdisho. waxaa si toos ah u socda isku socodka gaadiidka iyo dadka oo halkan si nabada ku socda, inkastoo weli aan si rasmi ah loo furin goobaha ganacsiga. waxaad dareemaysaan in magaalada barakac uu ka jiro, gaadiidka qaar ay ku raran yihiin soodariyada iyo alaabaha dadku ay guryaha dhigtaan ayaa halkan ku arkaysa oo ah magaalada Muqdisho, gaar ahaan wadada Maka al-Mukarrama. waxaa si caadi ah u socda isku socodka dadka iyo gaadiidka, balse waxaan weli la furin goobaha ganacsiga oo halkan aad ugu badan. waxaana gaadiidka ugu badan ee halkan adeegsanaya ay yihiin gaadiidka loo yaqaano bajaajka oo si weyn looga adeegsado magaalada Muqdisho. gaadiidka qaar ee wadadan adeegsanaya waxaa saaran dad xaafadahoodii ka soo barakacay, kuwaasi oo mucunsanaya xaafadaha kale ee magaalada ee ay isleeyihiin waa ay ka nabad roon yihiin meelaha hadda aad ku sugan tihiin. meelaha ugu badan ee barakacu ka jiro oo haatan anigu aan soo arkay waxaa ka mid ah xaafadda Taleex, gaar ahaan aagga xarunta degmada Hodan. halkaasi oo goor dhaweed aan soo maray waxaan ku soo arkay dad badan oo barakac sameynaya oo xaafadahoodii ka barakacaya. halkan Maka al-Mukarrama kama jirto cabsi badan, dadku caadi u socdaan, gaadiidku waa uu socdaa. sidoo kale waxaa aan weli la furin goobaha ganacsiga halkan ku teedsan magaalada Muqdisho. waxaa ka socota waan u dhaxaysa dowladda federaalka ah iyo mucaaradka. maantaasi waxaa wada ururada bulshada rayidka ah oo culummada iyo odayaasha dhaqanku ay ka mid yihiin. xalay waxay la kulmeen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, kaasoo ay ka dalbadeen in xaaladda la dejiyo. ra'iisul wasaaruhu waa uu ka aqbalay, sida uu ku sheegay muuqaal uu xalay soo duubay, waxaana uu xalay ka dhawaajiyey in xabadda la joojinayo, isla markaana waxa uu ku baaqay shir degdeg ah oo lagu xalinayo waxa keenay in magaalada Muqdisho ay dib ugu laabato xaalad dagaal ama xaalad colaadeed. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxa uu ugu baaqay ciidamada kala duwan ee dowladda federaalka ah in ay nabadda dadka shacabka ah ilaaliyaan, isla markaana aysan siyaasadda ku milmin. waxaa la soo warinayaa in meelaha qaar ee magaalada Muqdisho ay ka jiraan dhaqdhaqaaqyo ciidan, gaar ahaan xaafadda Howlwadaag, degmada Howlwadaag aan idhaahdo, xaafadaha Siigaale iyo Barmuudo ilaa aagga Sayidka ayaa la soo warinayaa inay ka jiraan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo u dhaxeeya mucaaradka, ciidamada taabacsan iyo sidoo kale ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. aaggaasi waa aagga ugu badan ee dadka ay ka barakacayaan, isla markaana laga dareemayo xaalad cabsi ah. magaalada inteeda kale waa ay xasiloon tahay, mana jirto cabsi weyn oo dadka xaafadaha kale ku nool ay muujinayaan, marka laga soo tago xaafadaha qaar ee ciidamada mucaaradka taabacsan oo sheegay inay ka soo horjeedaan muddo kordhinta la sheegay in loo sameeyey hay-adaha dowladda ay ku sugan yihiin. wixii ka soo kordha xaalka magaalada Muqdisho waxaad kala socon doontaan TV-ga
CBA oo mar walba u heelan inuu idin soo gudbiyo wararkii ugu dambeeyay ee xaalka dalka gaar ahaan xilligan magaalada Muqdisho ay ku sugan tahay xaaladan ismarwaaga ah ee u dhaxaysa mucaaradka iyo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. daawadayaal waad mahadsantihiin. dib ayaan idinkala soo wadaagi doonaa wixii ka soo kordha xaalka magaalada Muqdisho.